muslimiintu uguma aysan dhibaatoon waddan Yuruba sida ay ugu dhibaatoodeen Bulgaariya waddankan dhaca Balkaniska ama Balqaanka inkastoo Bulgaariya ay ku hoos jirtay xukunkii dawladda Cusmaaniyiinta ee Islaamka muddo 5 qarni ah 1396 ilaa 1878 haddana muddo 45 sano ah oo xukunkii Shuuciga ay ku hoos jirtay intii u dhaxaysay 1946 ilaa 1989 muslimiintu waxay dhadhabiyeen aafooyin xadgudub barakac iyo sirnahayba waa barnaamijkii aynu ku eegaynay taariikhda islaamka iyo muslimiintu ay ku leeyihiin wadamadii hore islaamka u ahaan jiray balse hadda aan ahayn qaybtiisan saddexaad waxa aynu ku eegi doonaa oo ku falanqayn doonaa muslimiinta Bulgaariya tirada muslimiinta Bulgaariya waxa ay yihiin 13.1 boqolkiiba wadarta guud ee ku nool Bulgaariya oo gaaraysa ilaa 7 milyan oo qof halka qiyaaso kale oo aan rasmi ahayn ay muujinayaan in bulshooyinka muslimka ah ee Bulgaariya ay ku dhow yihiin boqolkiiba 25 asal ahaan bulshooyinka muslimka ah 60 boqolkiiba waxa ay ka soo jeedaan Turkiga halka 25 ay ka soo jeedaan Bulgaariya boqolkiiba 15 waxa ay ka soo jeedaan Roma waxayna ku urursan yihiin xuduudka u dhow Yugoslavia Greega iyo Turkiga gobolada xiga bariga Doris iyo Thessalonica Bulgaariya islaamku waxa uu ka soo galay mantiqada Balkaniska ama Balqaanka oo ay ka talinaysay dawladda Cusmaaniyiintu qarnigii 15aad ilaa bilowgii qarnigii 16aad ee miilaadiga waxayna dawladdan ka tirsan Yurubta bari maamul ahaan ay ku hoos jirtay xukunkii Cusmaaniyiinta muddo ku siman 500 oo sano waxaana muddada gudaheed u soo haajiray oo deegaan ku noqday muslimiin Turki u badan tirada muslimiinta ku nool Bulgaariyana waxay gaartay ilaa 800 oo kun oo qof sanado kadib Ruushka iyo wadamada Yurub waxa ay bilaabeen duulaan ka dhan ah dawladda Cusmaaniyiinta Bulgaariyana waxay isku bedeshay meel ay ku dagaalamaan muslimiinta iyo Ruushku waxaana la gaaray ugu dambeyntii heshiiskii Berlin oo Bulgaariya lagu siiyay madaxbannaani ay ka hoos baxayso xukunkii dawladda Islaamka ee Cusmaaniyiinta oo waqtigaas dacfi badan soo galay waxayna isku bedeshay boqortooyo sanadkii 1909 boqortooyada cusub ee Bulgaariya waxay soo gabagabaysay heshiiskii Istanbul ee xulafada kadib markii boqortooyada Cusmaaniyiintu ay ka baxday gobolka Balkanka dagaaladii 1912 ilaa 1913 kaasi oo lagu dilay ilaa 2 milyan iyo bar muslimiin ah iyo ilaa 1 milyan oo aan muslimiin ahayn muslimiintii waxa lagu qasbay inay u barakacaan Turkiga iyo Greega dagaalkii koobaad iyo labaad ee adduunka Bulgaariya waxay la safatay Jarmalka waxayna boqortooyadan dhacday kadib markii ay weyday gacansiintii Shuuciga kuwaasi oo dib hadan ku sameeyay Shuuciyadda waxayna la yimaadeen qorshe cusub oo xataa lagu tirtirayo wax kasto islaam la xiriira isla markii ay Shuuciyaddu la wareegtay talada dalka Bulgaariya kuwaasi oo gacan ka helay Ruushka waxa ay ku dhaqmeen nooc kasta oo jirdil iyo tacadiya ay kula kacayaan dhammaan dadka diimaha laga tirada badan yahay gaar ahaan muslimiinta iyagoo oo dhinaca kale ahaa qowmiyadda labaad ee ugu tirada badan leh dalkaasi tan waxa ay barakaysay 100,000 oo muslimiin ah kuwaasi oo u cararay dhanka buuraha أميركي بلغاريا فرديناندkii koobaad isaguna waxa uu isku diyaariyay inuu iska dhigo qaysarka dalkaasi muddo ku dhow 10 sanadood laga bilaabo 1808 ilaa 1818 qaysar waa magac loo adeegsan jiray boqorada Roomanka xukunkii Ferdinand ayaa ahaa xukunkii Roomaanka ee Orthodoxka kaasi oo ku qasbay muslimiinta inay bedelaan magacyadooda islaamiga kuna bedelaan kuwa Yurubiyan iyo Bulgaariyana taasi oo ka carisiisay Turkiga xilligaasi balse taageerada uu qaysarku ka helay caasimadaha Yurub ayaa u diiday inuu gacan galo cadaadiska Turkiga ugu dambeyn waxay sababtay mowjado barakacayaal iyo muhaajiriin muslimiin ah xukunka Shuuciga ahi waxa kale oo uu ka mamnuucay dumarka muslimiinta ah xilashada xijaabka iyo dharka asturan sharciyada kale ay soo saareen waxa kamid ah in la baabi'iyo qubuuraha muslimiintu gaarka u leeyihiin bedelkeedana ay la isticmaalaan dadka kale aan muslimka ahayn in la joojiyo ciidaha iyo xafladaha muslimiinta lagana hortago wadxiyada ama xoolaha la qalo ciida Arafo in la dhimo tirada masaajida oo gaadhayay 1200 oo masjid iyadoo la duminayo qaar kalena waxyaabo kale loo bedelayo xataa waxa la gaarsiiyay haddii imaamka masjidku uu dhinto in la xidho masaajidkaasi in loo magacaabo mufti weyn oo u xil saaran arrimaha muslimiinta kaasi oo u heelinaya maamulka iyo sanqaadka iyo ka hortaga imaatinka caalim kasta oo yimaada dhulka Bulgaariya si muslimiinta looga ilaaliyo cid kasta oo cilmiga soo gaarsiin lahayd iyo in laga hortago furidda dugsiga Islaamiga Dr. Ali Al-Muntasir Al-Katani buugiisa muslimiinta Yurub iyo Ameerika waxa uu ku tilmaamay wixii muslimiintu ay kala kulmeen markii ay gacanta ku hayeen Shuuciyadda inay ahaayeen kuwii ugu fooshaxumaa taariikhda Shuuciga Yurub isagoo tilmaamay
tilmaamay in ololaha cunsuriyadda uu ahaa marka hore wax lala beegsaday caqiidada islaamka, sidaas darteed masaajidii waa la burburiyey, kutubtiina waa la mamnuucay, muslimiintana waxaa laga diiday inay ku dhaqmaan cibaadadoodii sida soonkii iyo salaadii. waxaa u sii dheer inay mamnuuceen gudniinka carruurta, kana hortegeen barashada afka Turkiga oo xilligaasi ahaa afka koowaad ee muslimiinta. waxa kale oo ay mamnuuceen in la dhiso dugsiyo islaami ah, iyadoo ay u dheereed in dadka laga tirada badan yahay laga hor istaago inay u dabaaldegaan ciidahooga gaarka ah. tacadiyada kale ee lagula kacay muslimiinta haddii aynu dhowr ka xusno, bishii May ee sanadkii 1972 5,000 oo muslimiin ah ayaa isku dayay inay ka tagaan magaalada Bazarjik iyagoo u socday magaalada caasimadda ah ee Sofia xilli habeenimo ah, balse markii booliiska Bulgaariya ay ka war heleen waxay dhammaantood u taxaabeen xabsi aad u dheer. isla sanadkaasi May 12-keedii ciidanka Bulgaariya waxay go'doomiyeen magaalada Iliniska oo muslimiin tiro badan ay ku noolaayeen. qaar ka mid ah dadkii istifaacay ayaa waxay dileen mid ka mid ah booliiska Bulgaariya. falcelintii ciidankuna waxay noqotay inay 30 muslimiin u taxaabaan xabsiga, 3 ka midana waxaa lagu riday xukun maxkamadeed. ololayaasha uu xukunka shuucigu ku bartilmaameedsanayay dadka muslimiinta waxa ay ku keentay saameyn taban oo xagga ku dhaqanka diinta islaamka. dadka qaarkii waxay go'aansadeen inay iska fogeeyaan sifo kasta oo diineed, taasi oo keenaysay in shuucigu bartilmaameedsado. xabsidanina waxa ay sii jirtay xataa markii uu dhacay xukunkii shuucigu, iyadoo isku beddeshay manhaj nololeed oo bulsho. waxayna cilmi baarisyadu tilmaameen in muslimiintu wakhtigaasi ay noqdeen kuwa keliya dusha oonka islaam ah ilaa la gaarsiiyey kuwa aan diinba haysan iyo kuwa calmaaniyiin noqday. waxaanay daraasadaha qaar oo la sameeyey sanadkii 2011 ay tilmaameen in badan oo muslimiinta ka mid ah inaysan masaajidda ku tukan, xataa guryaha aanay qaarkood ku tukan. sidaas oo ay tahay haddana muslimiintu waxay ilaaliyeen qaar ka mid ah sunnooyinkii iyo dhaqankii diinta islaamka sida gudniinka carruurta iyo sifooyinka aaska ama duugista. sidoo kale daraasaduhu waxay tilmaamayaan in dadka badankiisu ay soomaan bisha Ramadaan, halka in yar oo ka mid ahi ay joogteeyaan bixinta sakada. waxyaabahaasi oo dhanina waa saamayntii uu ka tegey cadaadiskii shuucigu. barnaamijkeeni intaasi ayaa uu ku eegyahay. daawada haddaad kanaalka ku cusub tahay fadlan ku soo biir sina sheer barnaamijka si uu gaaro saaxiibo kale oo daneynaya in mawduucyada noocan ogaadaan. mahadsanid.